halkan waxaan ku eegi doonaa qaabka method of data collection waxyaabaha ku dooranayso ama muxuu ku base garaysan muxuu ku salaysan yahay data collection method aan dooranayaa waxaan tixgelinta siinaya waxyaabaha tixgelinta siinaya wax number 1 ka ah baahida qofka cidda qabanaysa xirfadda qofku leeyahay qalabka uu haysto waxaa kamid ah in qaabka procedure-kii nidaamka raacaya uu u waafaqayo maadada aan wax ka qorayo iyo sidoo kale waxaan isagana waxyaabaha aan tixgelinta siinaya waxaa kamid ah intee in leeg buu xogtaan u baahnaa methodkan iyo habkani siin karaa qodobadaasaan tixgelinta siinaya saddex qodob aad bay muhiim kooda maxay qofka baahidiisa xirfadda qofku uu leeyahay iyo qalabka uu haysto kalabaadna waxa weeyaan procedure-ka iyo nidaamka aan raacaya sidee buu acceptable ugu yahay subject-gayga ama maadadan ama study-gayga kastaxna waxay ixtimaalka methodkan iyo habkan uu ii siin karo in dhammaan wixii aan u baahnaa oo dhan aan gaadho ama xogtii oo dhan aan wada helo marka the selection doorashada la dooranayo of the method of data collection habka xogta lagu soo ururinayo is also sidoo kale based on waxay ku salaysan tahay practical considerations waxyaaba tixgelino cad oo muuqda sida the need for personnel baahida qofka researcherka skillska researcherka uu leeyahay humanka uu haysto xogta kusoo qaadanayo etc wixii lamida toolskii wixiyo in relation to taa waxa iyadoo laga xirantaa what is available maxaa uu qofka haystaa muxuu iyadoo waxa markaa looga xiranaya waxa leeyahay what is available muxuu qofka haystaa and the urgency iyo degdegnimada with which results are needed degdegnimada loogu baahan yahay results in results soo baxaan sideeba degdeg loogu baahan yahay goormaa la doonaya in la helo maxaase qofka available ay qofku heli karaa ayaa tixgelinta siinaya sidoo kale waxaa tixgelinta la siinaya number 2 the acceptability inuu aqbalo the procedures to the subject procedureski nidaamka la raacaya subject iyo maadada iyo study-ga inuu aqbalo inay meesha ka maqan yani baa loo jeedaa the absence of inconvenience waxyaabo problems iyo mushkilada sababay meeshan ka maqan yihiin oo difficultness keenaya ama adkaanshay keen unpleasantness waxyaaba aan la jeclaysanaynin oo joyful ama unjoyful ah qofka aan jeclaysanin meesha ka maqnaadaan sidoo kale inay meesha ka maqnaadaan oo aanay joogin untoward consequence ama caqabado aan sinaba expected aan ahayn aan sinaba loo rajaynin inay meesha ka maqnaadaan ka acceptability wuu imanaya qodobka saddexaad waxaa yidhi probability ixtimaalka that the method will provide a good coverage probability ama ixtimaalka ama fursadaha that the method kaasoo habka aan dooratay will provide uu bixin karo a good coverage ama daboolitaan fiican oo inu dhammaan xogtii oo dhan heli karo tusaale will supply may siin karaa methodkani the required information xogtii loo baahnaa about all ee ku saabsanaa dhammaan or amaba almost inta ugu badan all members of the population or sample may siin karaa inta ugu badan xogtan uga baahnaa memberska populationka oo dhan ama sampleka aan soo qaatay haddii markaa intaa siin karaa waan ku qanci karaa if many people don't know the answer to the question haddii dad badan aanay garanaynba su-aashaad weydiinayso jawaabtooda the question is not an appropriate one maaha tii ku habbooneed research question baad samaysay su-aashaad samaysay questionnaire-kaaga markii dambe su-aalahaad gelisay dadka weydiinaysay iyo methodka iyo habkaad u maraysay ayaa su-aashaad ku weydiinaysay dadka oo dhan baa ka jawaabi waayba way garan waayeenba jawaabti waxay noqonaysaa qaabka jawaabta su-aasha u dhigtay baa khaldan su-aasha marka waa inaad bedeshaa the question jawaabtaasi su-aashaasi is not an appropriate one maxaa la yidhahdaa if many people haddii dad badan will not know aanay garanayn the answer jawaabta to the question su-aashaad weydiisay research question-kaaga the question su-aashaas is not an appropriate one maaha tii saxda su-aashii saxda ahayd loo baahnaa maaha waayahay halkan waxaan ku eegi doonaa qaabka loo design gareeyo questionnaire qaabka loo design gareeyo ayaan ku eegi doonaa marka koowaad horta questionnaire laftiisa ayaynu qeexaynaaba questionnaire oo maxaad questionnaire waxaan ku qeexaynaa waxa weeyaan waa research instrument waa qalab ama instrument loo isticmaalo researchka concept of kaasoo ka kooban a series of questions su-aalo istaba yaala for the purpose kaasoo ujeedadu ay tahay of gathering information in xog laga soo wariyo from respondents dadka su-aalaha la weydiinaya jawaabaya in xog laga soo wariyo jawaabtiisa weeye halkan maadaama aan kaga hadlayno inaan design garano questionnaire inta designinkiisa aynaan u gelin waxaanu ka hadlaynaa equationska ama su-aalaha loo isticmaalo questionnaire-ku maxay yihiin
laba qaybood oo su'aalo ah oo la isticmaalo questionnaire-ka ayaan xaggan ku eegi doonaa qaarna la yidhahdo open ended questions qaarna la yidhahdo closed ended questions kuwa marka eegna kadib steps u geli doona loo marayay marka research la design garanayo before examining intaynan kol eegin the steps tallaabooyinka designing ee questionnaire-ka lagu design garanayo we need waxaynu u baahannahay to review inaan dib u eegno the types noocyada of questions su'aalaha used loo isticmaalo in questionnaire-ka su'aalaha loo isticmaalo oo laba ah sidaan hore imika xusnay depending on waxay ku xidhan tahay how questions are asked sideeba su'aalaha loo weydiinaya unrecorded loona kaydinayo we can depend iyadoo ku xidhan how questions are asked and recorded sida su'aalaha qofka loo weydiinayo loona kaydinayo we can distinguish two major possibilities waxaynu kala saari karnaa laba hab oo suurtagal ah oo su'aalaha la isu weydiiyo mid waxa la open ended questions mid waxa la closed ended questions open ended questions hadday la fahantaan waa su'aalo waxa weeyaan furan waa aragtay marka questionnaire-ka la buuxinayo su'aalaha qaarkood waxay leeyihiin dash dash oo meelba wax lagu qoraya inta badan dadka questionnaire-ka buuxinaya su'aalaha yaryar ee tigta ah ama yes iyo nooda ama goobo gelida way jeclaystaan qof marka waxa laga yaabaa inuu iska goobo geliyo laakiin dadku inta badan waxay yara karhaan questionnaire-ka marka saa u eegaan karaya qofku kan close openka ah su'aasha openka ah waa qofku intaa wax qofku su'aal ahaan uma karaahsanayo wax macluumaadka meesha ku qoran laakiin qofku wuxuu karaahsanaya intuu buuxinayo haddii questionnaire imika lagu dhiibo isna questionnaire-kaas su'aalo closed iyo open oo isugu jiro kuwa closed-ga marka waad googoobaysaa ama waad tigaraynaysaa laakiin kuwa openka waxa laga yaabaa waqti kugu qaadato in questionnaire-ka waqti kugu qaato marka sababta inta badan dadku marka questionnaire-ka samaynayaan ay uga dhigaan closed-ka u badiyan weliba closed-ka inta badan su'aalaha laga dhigayo waa su'aalo marka horeba jawaabahooda dee afar jawaabood ama saddex jawaab loo soo awoodo yeelanayaad garanayso laakiin openka inta badan waxaa laga dhigaa su'aalaha aad u baahantay xog badan inaad hesho xogtaana aanad imika adigu garanaynin laakiin qofka aad weydiinayso ayaa xogtii haya marka si aad uga hesho waa in qofka open uga dhigtaa si uu xogtii u qoro marka open closed-kuna waa kuwaan sheegnay xidhan ama goobo gelida ama tigta la saarayo marka open ended questions permit waxay ogolaadaan free responses jawaabo daba furan that should be recorded kuwaasoo laga kaydinaya in the response unwordska ama kelmadaha respondesku isticmaalay ayaa laga kaydinaya hadhow laga qoraya the respondent is not given any possible answer to choose from respondentka is not given lama siinayo any possible answers jawaabo suurtagal ah to choose from inuu ka doorto wax su'aalo la siinayo choose ama meesha uu ka dooranayo ma jirto isagaa qoraya jawaabta such questions haddii su'aalaha noocan are useful waxay muhiim yihiin to obtain in la helo information xogta on ku saabsan kow facts waxyaabaha factska xaqiiqooyinka which was the research is not very familiar waxyaabaha familiar-ka aanu ku ahayn waxba aanad tusaalaan macluumaad badan kama haystid marka su'aal kasi samayso qofkana soo samayso meena kuu samayn mayso adiga laakiin cidda hadhowto kaaga jawaabaysa xogta keedaysa waayo waa ciddii respondent-ka ahayd sidoo kale opinions afkaarta qofka marka la doonayo inaad ogaado dee afkaar qof maxaad adigu qofka maskaxdiisa kuma jirtid sida afkaartiisa u hesho si aad si sawirkiisa u hesho qaabku qofku u fikirayo si aad u ogaato suggestionska qofkaad wareysanaysa information ka qaadanaysa uu soo jeedinayo waa inaad u dhigtaa su'aasha open marka opinionskii afkaarihii attitudeski fikirkii qofka and suggestions iyo soo jeedinihii of environments oo qofka information ka bixinayo or amaba markaad doonayso sensitive issues waxyaaba sensitive ah dareen leh marka horeba doonayso qofkan dadkan inay kula wadaagaan oo dareen ahaan dadkan ugu jira ama iskaba xasaasiya arrimo iska xasaasiya oo doonayso dadka inaad baadho ogaato qofka waxaad doonaysaa questionnaire-ka waxaad uga dhigaysaa open qof kastaaba marka xogtiisa saxda ahayd uu kuu siiyo laakiin dad soo xidho wixii closed ka dhigto already waxa waad ogtay ka dhigan halkan waxaan ku eegaynaa marka bal tusaalayaal ayuu ka kooban yahay open ended questions su'aalihii dabada furnaa su'aalaha dabada furan leh waa su'aal waxba la sharaxayo maniga opinionska iyo attitudeska iyo suggestionska iyo waxyaabaha sensitive-ka iyo information aad hore u haynin waxyaabahaas lagu ogaadaa marka imika su-aashan oo kale u fiirso tusaale ahaan gabadh baa lagu leeyahay can describe ma sharaxi kartaa exactly si saxa what the traditional birth attendant dadka umulisooyinka dadka ka umuliya ee traditionalka waxyaabaha dhaqanka dee muxuu dhaqameedka ah medicalka aan ahayn did ay sameeyeen when your labor started ay sameeyeen when your labor started markii
fooshaada ay bilaabantay maxay sameeyeen idan qofkii dee waynu qoraa laakiin haddaad istiraado u qor kaamay sameeyeen kaamay sameeyeen kaamay sameeyeen kaamay sameeyeen ma suurtagal ma aha ma noqon karto closure marka waa open bay noqonaysaa qofku isagaa sharaxaya waxaasay sameeyeen waxaasay sameeyeen waxaasay sameeyeen isagaa sharaxaya marka description bay noqonaysaa meesha su-aashan oo kale iyadana bal eeg what do you think baleg maxaa leeyahay think maxaad u malaynaysaa male qofka opinionkii maskaxdiisa baa laga su-aasha laga soo saaraya what do you think maxaad u malaynaysaa are the reasons inay yihiin sababaha for a high drop out rate inuu kor u kaco dadka nolosha ka dhacay drop out rateka xaddiga oo village health committee members guddidii xubnihii guddida ee caafimaadka degmada qaabilsanaa oo shaqadoodii aan qabsanaynin drop out noqday ratekooda kor u kacay maxaad u malaynaysaa waxaas inuu ka yimi dadna qof kastaba waxay la tahay ayuu eegaya mushkiladaha meesha yaala wuu reason garaynaya marka taasaan qorin class marka waxay noqonaya open ended questions qaybta kale in eegana waxa weeyaan waa qaybtii kale closedka ahayd marka closed questions ama closed ended questions iyaguna waxay noqonayaan waa qaar inta badan iyagu waa already adigaaba sii qoranaya oo jawaabihii possible-ka ahaad meesha ku haysaa deedna jawaabti kastoo possible ah aad hayso ayaad jawaabo kale dhex gelinaysa ama dhowr jawaabood oo suurtagal ah oo meesha ku habboon su-aasha ku habboon ayaad meesha gelinaysa marka qofka tiisaga la sax ah ayuu dooranaya su-aal kale age oo kale dadka weydiinaysa because end bay noqon karta mama noqon karto iyada open waxay noqonaysa hadhow open keed ku dawaaqto oo qof waxaa laga yaabaa rangegaad qori hore ma 15 ilaa 20 udhexaysa mid 16 qora mid 17 18 saa in hadhowto waxaa kugu adkaanaysa inaad hadhow qaabkooda u qoraysa adkaanaysa percentage-kii baa adkaanaya wax dhan baa kugu adkaanaya close row kale noqonaysa in tiraahdo 15 ilaa 20 ilaa 30 30 ilaa 40 dadna qofku dee da-da uu ku dhex jirin buu tigaraynaya way closed questions over waxay uu ku deeqaan a list of possible options list possible options kiya waxyaabihii suurtagalka ah dooqaqii waxyaabihii la dooranayay suurtagalka or answers ama jawaabi from which was the respondents ama cidda jawaabaysa must choose waajib ku tahay inaad doorato when deciding hadda marka la design gareyn closed questions one should try to waa inuu qofku isku dayaa over inuu bixiya list waa inuu bixiya of options ay ku yaalaan options that are exhaustive kuwaasoo dhammaystiran and mutually exclusive wax gaara na ka hadlaya wax daba furan aanu ahayn like wax gaar oo cayiman ka hadlayan yihiin sidoo kale waxaa shardi ah markaad design garanayso closed questionska keep the number of options inaad options as few as possible ka dhigto qaar yarayso aanad badinin soo koobto in closed questions are useful if the range of possible responses is known haddii la garanayo rangiga ama inta jawaabood ee saxda ah ee la heli karo la garanayo markaas baad isticmaali kartaa haddii aad jawaabaha saxda garanayso dee oo doonaysa inaad develop garayso closed questions markaasun bay garanaysa markaas useful yeelo closed questions are useful way qaar useful oo aad loo isticmaali karo faa'iido badan the range haddii xaddiga of possible responses jawaabaha suurtagalka ee lagaga jawaabi karo su-aashaas is known la garanayo halkan tusaalayaal baynu ku eegaynaa closed questionska waa iska simple closed questions ama kala sameynaya ama qofka si yar fudud uga samayn karo tusaale ahaan waxaa lagu yidhi what's your marital status muxuu yahay kaaga qofnimo ama xaaladda aad ku sugan tahay arrimaha qoyska laga hadlayo waxaad u dhigtay single buu tigraynaya kii marriedkii ama living together dadka wada nool bay loo jeedaa waa inay marriedka waa in tig buu siinaya waa inuu saddexaad waa inuu separate ayuu dooran karaa ama divorce buu dooran karaa ama widow buu dooran karaa marka intan qofku markuu ku jiro xaggan buu tigraynaya hadduu ama separate yahay separateka inta badan wax laga isticmaalaa dalka galbeedka laga isticmaalaa divorce ama widow marka intan hadduu qof ama separate yahay ama divorce qof lasoo furo yahay ama widow armala waa inuu tigraya kan hadduu married yahayna waa inuu kaa tig hadduu single yahay kaasuu tigraynaya marka intaa qofku ma odhan maayo single baan ahay haddana married laba option ma dooran mid ma dooranaya sidoo kale su-aashan oo kale haddii lagu weydiiyo have you ever gone weligaa ma tagtay to the local village health worker ma u tagtay dadka caafimaadka ka shaqeeya xaafadaada for treatment
ma ugu tagtay treatment iyo daaweyn dad ugu tagtay yes bonus haddii kalena no marka intaa wax dhaafsiisan ma jiraan marka laga hadlayo qaybtan closed ended questions marka waad si fiican baad ila fahantaa filaya closed ended questions iyo open ended questions labadaas farqiga u dhexeeya si fiican bayn u kala garanaa in qaybta ku xigta waxaan ku eegaynaa designing markii la sameynayay questionnaire designing of questionnaire baan eegaynaa tallaabooyinka la qaadayo marka la doonayo in la design gareeyo steps in designing a questionnaire tallaabooyinkaasi waa 5 tallaabo weeye tallaabada koowaad waa content tallaabada waa formulating questions tallaabada saddexaad waa sequencing of questions tallaabada afraadna waa formatting the questionnaire tallaabada shanaadna waa translating marka ta koowaad waa contentkii weeyaan marka hore contentka su-aalaha way ka kooban yihiin marka horeba aad sii cayinto waxaad kasoo eegaysaa objectiveskaaga iyo variableskaagi iyo su-aalahee baa ku habboon su-aalaha ku habboon ayaad marka ugu horeysa waa decide garanaysaa waad qorsheysanaysaa decision baad gaadhaysaa decisionka aad gaadhayso ee aad ku salaynayso inaad variableskaaga qeexdo inaad research objectiveskaaga qeexdo iyo qaabkaad u cabiri lahayd ay noqonayaan content marka hore inaad ogaato horta contentkii dejiso iyo inta su-aalood uu noqonayo iyo su-aalahagaas qaabka u dhigmayaan waxaasna marka dejiso waa designingka good questionnaire ayaa intaan maraya intaa marka dejiso marka labaad waxaad u gudbisa inaad su-aalihii bilowdo labaad step 2 waxa formulating questions marka formulate gareyso marka questionskaas formulate gareynayso waxay ku xidhantay mar walba maxaad informationkaad u baahan tahay muxuu yahay variable kasta informationka iyo xogtaad uga baahan tahay muxuu yahay waxa la doonaya su-aalahaagu inay noqdaan qaar specific ah oo meel specific khaas ah qaar inay noqdaan precise ah oo kooban si fiicanna ay uga jawaabi karaan respondesku weliba respondesku aanay aada u kala fogaan karin waayo haddii fahamkaada adkayso su-aasha waxa laga yaaba respondeskaaga ama dadka ka jawaabayaana in fahamkoodu kala duwanaado dadna qofku meel una cararo dadna su-aasha waa inaad fahamkeeda soo dhaweysaa marka dadku ay markiiba si fiican ugu fahmaan si fiican uga jawaabaan stepka saddexaad waa sequencing of questions sequencekaas waxa weeyaan qaabkaad susunka ugu sameynayso su-aaluhu sidee bay u kala horeynayaan sideebaad xaggaad ka bilaabaysaa su-aalahaad ka bilaabayso inta badan waxaa lagu horeysiinaya kuwa social democratic ah dadka bulshadooda iyo qaabka dadku u nool yihiin iyo waxyaabahaas ugu horeysiinaysa oo ka hadlaya behaviorka dadka iyo marka ugu horeysa waxaad weydiinaysaa qofka agekiisa iyo levelkiisa educationka iyo behaviorkiisa incomekiisa waxyaabaha inta badan sequenceka say u kala marka dambena objectiveska baad mid mid u gelaysaa objectiveskaagu iyo variableskaagu say u kala horeeyeen ayaad u kala horeysiinaysaa intaa marka sameyso waad format garanaysa formatku waa sida caadiga waa nidaamintii iyo habeyntii headingkii iyo spacingkii iyo numberingkii iyo waxyaabaha geliso ayuu noqonaya formatting marka waad format garanaysaa nidaamkii iyo sidii saxda ahaa ee loo sameyn jiray marka la qorayo qoraalka la sameynayo ayaa formattingka loogu sameynaya iyo layoutka qaabka loogu sameynayo stepka ugu dambeeya ee shanaad waa translation translationkaasi wuxuu ka imanaya haddii cidda aad tusaale ahaan questionnaire baad diyaarisay questionnaireka aad diyaarisay ciddan aad u diyaarisay tusaale ahaan english baad ku diyaarisay dadka aan u diyaarisanay english ma yaqaanaanba marka waxay noqonaysaa marka hore diyaarinta inay kugu fudayn english ku diyaariso waxay noqonaysaa marka dambe haddana soomaali ku turjunto kaa soomaaliga ku turjuntay ayaad markaa dadkii la wadaagaysaa si markaa markay soomaaliga uga soo jawaabaan hadhowta adigu dib markaad analyze garanayso aad dib ugu bedelato marka shantaas step ee waaweyn ayaa marka la doonaya in design lagu sameeyo ama la qaabeeyo questionnaire la maraya waa contentka marka hore in variableskaga objectiveskaaga ku sameyso su-aaluhuna ay noqonayaan inaad formulate garayso questionska aad sameyso inaad sequencing u sameyso kala horeysiiso susun u sameyso inaad format garayso questionnairekaad format garanaysaa
labelingkii iyo layoutkii iyo numberingkii iyo waxyaabahaas aad u samaynaysaa marka dambena translationkii. haddii cashirkeena maanta halkaasaan ku joojinaynaa intaan xiisadda ku xigta ku kulmana kaga tegayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.